shir ayadoo ay si wada jir u qabteen gudoomiyaasha degmooyinka Alkacyo iyo Hobyo ee maamulka Galmudug ayaa waxay kaga hadleen qaraxii ismidaaminta ahaa ee shirka la eegtay hoyga magaalada Alkacyo ka deganaa General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid Seenib Cusmaan Caato oo ah duqa degmada Alkacyo ee maamulka Galmudug ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay falkii ismidaaminta ahaa ee shirka lagu weeraray guriga Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayadoona Allah uga togtay dadkii waxyeelada ka soo gaartay in Ilaahay caafiyo أنا وآسين عثمان حسن أهل الدقة مقالة قاركعيو وحن هرت أول وتعسيدين يا دمان ذكر ريل قلمدو دبكي شالي فوش حماء كدعي مقالة قاركعيو قاس أهان جوجا جنرالكا وحن إلهي وبرينا دمان ذكي كل انتي إن سمري إيمان إلهي كسيو انت كداوع كل نقطة إن إلهي عاف ما تسيو دمان ريد قلمدو وحن كعصنا هيا إن لو فيجنادو الله إسكفيري لبعتها أول وحن لو أمان الشري وضع قال كعيو سيبا لنا عن قلمدو والنبض لكن هذا وادو جدا ما دام ما يلبض لقسو سفيه أن نجا هوست النوجا جيران وإن أنا سفي عن إسكجا إلى لنا وإسكجا قبلنا تقدم ماذا خبيه يا مامل كقلمدو وأصلا الشيء إن كحيين فالكاسي إلا وين لا راجعون قرحي فالحمد بدنا شلا كده هاي سياسي جوين جنرال عبد حسن عوالة قيبديد جورجيسي أيوة إلا جوجين بروفيسور يو وزيره تدخل دنتنا وحن إلهي وبرينا جنة فردوسين وكورابيو تدخل وعننا إلهي وإلهي عافيه وحن لين هاي بقولك وبقول أدبان وحنا هاي باش عالم كي تدخل كلام سوماليين وحن قعد سنينا meel walba ay joogto inay iska ilaaliso anagana waana la gaaday waana qorneed qolada sheegatay ama waxa asfalka ka dambeeyo foosh xunlan waa dadka la yaqaan waa shababaha marka ilaahayna hanaga qabta anagana ilaahay idinkiis waa iska qaban doona waxbaan shirkan jiraayad oo si wada jir u qabteen gudoomiyaasha degmooyinka Hobyo iyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid Calimaad Ibraahin telefishinka caalamiga Royal Galkacyo Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un shilka maanta dhacay runtii waa shil aad iyo aad u foolxun arrintaasna waa markii ugu horreysay ay ka dhacdo deegaankeennan Galmudug sababaha keeni karaahina waxa weeye amni darrada soo badanaysa ka jirta dalka Soomaaliya oo dhan runtii waa ka caafimaad qabnay kooxahaas isqarxiya mana aanan ma taqaana arki jirin laakiin hadda waxa weeye tii dhacday shacbiga reer Galmudug dhamaantiisna waxaan leeyahay inay ka digtoonaadaan amnigoodana adkeeyaan qof kasta oo jooga magaaladana iyo soo galaya ama ka baxaya ama degan in la iska hubiyo waxa uu ku joogo iyo waxa uu yahay midda kalena nimanka ciidanka ah waxaa lagu baraarujinayaa inay 5 jibaaraan 6 jibaaraan amniga shacbiga ayaga ka mas'uul ah ilaahay ka sukow sidii ay u dhowri lahaayeen oo ilaali lahaayeen amnigooda intii dhibata waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawaca ahna ilaahay ha caafiyo runtii intaas in ka weyn inay sameeyaan ay doonayeen rag badan oo mas'uuliyiin ah oo magac leh oo karaamo ku leh dalka iyo dadka ayaa meesha ka dhawaa laakiin ilaahay baa ka badbaadiyay hadda inta kalena in ilaahay ummadda badbaadiyo waxa soo kalena meel looga soo wada jeesto oo lala wada dagaalamo oo si mar dambe ayaan u dhicin ayaan ilaahay ka rajaynayaa arrinta ku jeeday waan kamid ahaa ilaahay waa naga badbaadiyay laakiin cadowgaana soo ataagay waxaana ay nala maaganaa inuu nabaabiyo waxa uu nagu baabi'inayna hadda garan wayno waxaan ka qabnay garan wayno marka ala kulli xaal inta dadka waqtiga hadda ka dambeeya Galkacyo isku haleyn male in ummaddu taxadirto oo aad iyo aad looga gaashaanto amni darrada iyo dadka amni darrada wada intaba sida madaxweynuhu sheegay intaasaan la qabaa fijignaan dheeraad in la muujiyo oo nabadda xasiloonida laga shaqeeyo magaalada Hobyo
waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan dadkii eheladii qaraabadii u ka dhinteen dadkii ku dhaawacmay dadkii ku dhintaba allah u naxariisto dadku dhan ilaahay ha caafiyo dhacdo xun bayna ahayd waana ka walwalsannahay maamulka dhammaantiis wax laga naxa weeye waxaan ilaahay idinkiisaan ka baryaynaa inaysan tan oo kale nagu dhicin waana ka digtoonaa doonaa wayna gaadeen waxaan samayn doonaa insha allahu dhaqanjibaar wixii ciidan iyo amni ah hadduu rabbi ilaahay yidhaahdo waxaan ummadda soomaaliyeed meel walbana ugu tacsiyeynaynaa saan inay isaga ilaaliyaan uusan loo dhuuman raggi difaacay oo iska dhiciyeen waxaan leeyahay geesiyaal dadkooda iyo dalkooda difaac allah ka dhigo